kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah xubnaha mucaaradka dawladda oo go'aano culus soo saaray kadib heshiiskii arrimaha doorashooyinka siyaasiyiinta beelaha gobolka Gedo oo ka hor yimid qodobadii lagu heshiiyay arrimaha doorashooyinka xog ku saabsan qaraxyo Muqdisho iyo Kismaayo siyaabo kala duwan uga dhacay oo saraakiil iyo ciidamo lagu laayay in ka badan 40,000 oo arday oo imtixaanka dawladda maanta u fariisatay intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warka yaga aatana kusoo dhawaada iyagoo intii hore ka faahfaahsan xubnaha mucaaradka dawladda ayaa go'aano culculus soo saaray kadib heshiiskii arrimaha doorashooyinka xubnaha mucaaradka dawladda ka soo horjeeda ee midowga musharaxiinta isla markaana u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jagadiisa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay waxa ay daaha ka rogeen inay sii wadi doonaan dadaaladii ay ku bixinayeen sidii dalka ay doorasho uga dhici lahayd isla markaana loo gaari lahaa heshiisyo ku saabsan arrimaha doorashooyinka midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay dadaal badan ku bixiyeen sidii looga hortagi lahaa fawdo iyo qalalaase amni oo dalka ka dhacda iyo sidoo kale xaalado kala tagsanaan ah oo dalku uu fooda la galo midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan dadaalada ay kaga mira dhalinayaan heshiisyadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ay sheegeen golaha midowga musharaxiintu inaysan marnaba kala tagi doonin ilaa iyo inta ay doorasho dalka ka dhacayso warar maalmihii dambe la isla dhaxmarayay ayaa waxa ay sheegayeen in midowga musharaxiintu ay kala tagi doonaan maadaama heshiis laga gaaray arrimaha doorashooyinka isla markaana mid walba oo ka tirsan midowga musharaxiinta oo ololihiisa gaarka ah samaysan doono balse go'aano culculus oo ay gaareen midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen in marnaba aysan kala tagi doonin isla markaana waxa ay u muuqatay arrintaasi mid dhabarjab ku ah dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale loo fasirinayay in ay midowga musharaxiintu soo jeesteen oo aysan kalsooni badan ku qabin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo heshiisyadii la gaaray kulankii ay magaalada Muqdisho ku yeesheen midowga musharaxiinta ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo dhamaadkii toddobaadkii dhaafay la shaaciyay heshiis ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo si rasmi ah ay u saxiixdeen madaxda dawladda dowlad goboleedyada iyo xubnaha ka tirsan midowga musharaxiinta taasi oo lagu xalinayay caqabadihii cakirnaa ee hortaagnaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana si rasmi ah loogu dhawaaqay in muddo 60 cisho ah gudahood si rasmi ah dalka looga hirgeliyo doorasho wada jir ah oo wada ogol oo dalka ka dhacda siyaasiyiinta beelaha gobolka Gedo ayaa ka hor yimid qodobadii lagu heshiiyay arrimaha doorashooyinka qaar ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen in aysan marnaba aqbalaynin qodobada qaar ee lagu heshiiyay ee ka soo baxay shirkii wada tashiga qaranka ee maalmo koor ku soo idlaaday magaalada Muqdisho shirka golaha wada tashiga qaran oo ku dhawaad toddobaadyo ka soconaya teendhada Afisiyoni ayaa waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo lagu heshiiyay isla markaana ku saabsan hanaanka doorashooyinka ee dalka ka dhacaya iyadoo ay hanaankaasi qayb ka ahaayeen hanaanka lagu soo dooranayo xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Gedo iyadoona arrintaas sida loola dhaqmayo ay ka soo horjeesteen isla markaana ay ka hadleen siyaasiyiinta deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Gedo kuwaas oo aan ku qancin qodobadii ku saabsanaa arrinta gobolka Gedo madaxdii ku shirtay magaalada Muqdisho ayaa go'aamiyay in doorasho uu garwadeen ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ka dhacdo magaalada Garbaharey taas oo inta badan qabanqaabadeeda uu yeelan doono madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana siyaasiyiintu ay si aad ah arrintaasi u sheegeen in wax uu wata Axmed Madoobe aysan ka socon doonin gobolka Gedo siyaasiyiinta qaar ee ka soo horjeestay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay dhaliileen in heshiiska fulintiisa ay qusayso madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay sheegeen inaysan u aqoonsanayn madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland heshiiska qaybtiisa ku saabsan Jubbaland waa qaadacsannahay sida aad ogtihiin dhismihii ugu dambeeyay ee Jubbaland waxa isku caleema saaray si iskiisa madaxweynaha ninka isku sheegaya ee Axmed Madoobe oo dawladda dhexe aysan aqoonsanayn waxayna u ogolaatay muddo 2 sano ah in doorasho kale uu ku qabto balse waxay u egtahay in waqtigii loo ogolaaday oo Jubbaland uu si maamulayay uu ka dhamaaday isla markaana
sideedda bisha ay ka dhammaanayso Jubbalandna uu doonayo in si sharci darro uu ku sii haysto isla markaana aysan aqbalayn in heshiis isaga quseeya ay ka dhacaan deegaanada gobolka Gedo waxaana ay sidoo kale sheegeen inay wadaan olole la magac bahay raadinta Jubbaland oo ka dhan ah madaxweynaha haatan hogaamiye Jubbaland isla markaana ay ugu mashquulsan yihiin sidii maamul cusub loo dhisi lahaa oo ka kooban saddexda gobol ee Jubbaland ku midowday dowladda federaalka Soomaaliya oo isqabqabsiga dhismaheena uu ku batay ayaa dib inoo riixday waxyaabo badan oo aan doonaynay in aan dejino ayaa dib u dhacay wada xaajoodyo badan oo aan sameynay ayaa si daba dheeraaday oo arrimaha doorashooyinka ah balse inagu wax walba waan isku dayeynaa ayuu yiri afayeen u hadlay golaha raadinta Jubbaland oo isagu ka hadlayay arrinta gobolka Gedo iyo qodobadii ka soo baxay shirki Afisiyoni ugu dambeyntii siyaasiyiinta ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin nabadeynta iyo dib u heshiisiin ka dhacda gobolka balse aysan doonayn in saddexda gobol ee Jubbaland ay ka qabsoonto dib u heshiisiin loo dhan yahay si loo ambaqaado doorashada maamulkaasi faahfaahinno dheeri ayaa ka soo baxaya qaraxyo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo oo lagu laayay saraakiil iyo ciidamo fara badan qaraxyadan oo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo ayaa waxa lala eegtay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana lala eegtay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxan oo jugtiisa laga maqlay qeybo kala duwan oo kamid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana qaraxu uu si rasmi uga dhacay agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel u dhow bar control oo laga ilaaliyo wadada aadan dhinaca garoonka aadan cadde ee Muqdisho qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka la geliyo ayaa waxa lagu aasay wadada hareeraheeda waxaana lala beegsaday gaari uu la socday sargaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Daahir waxaana la sheegay inuu ka badbaaday sargaalkaasi qaraxa si dirqiyana uu kaga badbaaday inta la xaqiijiyay waxa qaraxani ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada u ahaa sargaalka waxaana sidoo kale la sheegay inay jiraan qasaare kale oo soo gaaray dad shacab ahaa oo ku sugnaa agagaarka goobta uu qaraxu ka dhacay sargaalka sare ee qaraxa lala eegtay ayaa waxa uu ahaa Maxamed Daahir waxaana horay u soo noqday taliyaha qaybta saldhigga galbeed ee Waliyow Cadde iyo sidoo kale taliyaha saldhigga degmada Xodan ee gobolka Banaadir laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaraxan wali wax faahfaahin ka bixin waxaana la sheegay in qasaare kala duwan qaraxani uu geystay isla markaana uu ahaa mid ay ku dhinteen saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubbaland wararka aan ku helayna magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan ay ku dhinteen ciidamo fara badan oo ka tirsanaa maamulka Jubbaland isla markaana waxa si rasmi ah loo xaqiijiyay qaraxan in ay ku dhinteen dad gaaraya 7 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Xaya kadib markii ciidamo ka tirsanaa maamulka Jubbaland gaari ay la socdeen qaraxa lala eegtay wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in gaariga ay la socdeen ciidamada maamulka Jubbaland ee qaraxa lala eegtay uu ku baxay soo dhaweynta ciyaartooy ka tagtay deegaanka Qooqani oo ku sii jeeday deegaanka Afmadow ee isla gobolka Jubbada Hoose ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa inta badan qaraxyo kala duwan lala eegtaa xilliyada ay ku socdaalayaan deegaanada Jubbooyinka waxaana qaraxyadaasi mas'uuliyadooda inta badan dhabarka u rita dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoona ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya weeraro Jubbooyinka ka dhacay oo Al-Shabaab ay ka dambeeyeen inta badan ay qasaare kala duwan ka soo gaareen waxaana la tilmaamay in weeraradii qaraxyada ahaa ee ugu dambeeyay saacadii la soo dhaafay Muqdisho iyo Kismaayo ka dhacay in ciidamo fara badan iyo saraakiil dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland looga dilay ugu dambeyntiina imtixaanka shahaadiga ee dowladdu ay qaadayso ayaa saaka si rasmi ah uga furmay gobolada dalka iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah saakay daaha kaga rogay imtixaanka shahaadiga oo dowladdu ay qaadayso isla markaana ay u fariisteen in ka badan 42,000 oo arday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar
wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah imtixaanka u furay waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo goobaha uu imtixaanku sida rasmi ah uga ambaqaadmay waxaana la sheegay in ciidamo fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa la geeyay goobaha imtixaanka lagu qaadayay isla markaana sida rasmiga ah uu saaka uga ambaqaadmay iyadoona dowladda federaal in ka badan 40 xarumood ayaa imtixaanka shahaadiga ah ardayda looga qaybiyay waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn sheegtay inay xil isaga saarayso imtixaanka dowladda ee sanadkan ay dowladdu qaadayso ayaa noqonaya kii toddobaad kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u bilowday qaadida imtixaanka shahaadiga ah sanadkii 2014 xilligaas oo ay jirtay dowladdii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud waxaana jirta cabashooyin fara badan oo laga muujinayo imtixaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo cabsi xoogan oo ku aadan arrinta imtixaanka dowladda ay qaaday sanadkii hore kadib markii ay ku dhaceen ardaydii ugu badnayd oo gobolka Banaadir ahayd kuwaas oo gaarayay 7,000 oo arday waxaana jirta arday fara badan oo cabasho xoogan arrintan ka muujinaya imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya saaka ay daaha ka rogtay iyadoo ay jiraan arday fara badan oo imtixaankan aan nasiib u yeelan inay ka qayb qaataan kuwaas oo dhameystay dugsiga sare wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay arrinta ku saabsan ardayda aan ka qayb galin imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda ayaa waxa ay sheegtay in sababo jira awgood ay ardaydan uga baaqsadeen isla markaana ay baaritaan kala duwan ku soo sameyn doonaan sidaasna aysan ardaydu uga hari doonin guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warsida TV wanaga inta ay nabadgeliyo